السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مقل مجرى اسم القوها يا من القيسة ضرع لو أكتي منو. اوكي ما انت بحان مقنع waxaan soo raadinayay qaab online ah ama qaab idinka u arki kartiin inaan usoo bandhigo. Marka cashirkan guda galeynaa. Cashirkan wuxuu noo marayaa anagoo joogno arrimaha guriga. Xaaladda guriga ayaan ku jirnay. Marka hadeer mawduuceena maanta wuxuu yahay wax meesha ku qoran du hast aber schon ein mobil. Ligaas cashirka ku horeeyay haddaan dib u noqdo calaashaan meeshaan had sheekada noo socota wo wohne ich wohne oder mein Haus ist sehr schmal, mein Haus ist nicht okay. Ja, marka waxaan noo socota marka sheekadii ahayd arrinta guriga. Qof oo guriga soo booqday, gurigu weydiiyey, waa loo sharxay, intan waa kana saas oo kale. Marka maanta cashirkan wuxuu noqonaa marka du hast aber eine schöne mobil. Waxaa haysataa qalab guri oo qurux badan. Qalab guri oo qurux badan. Okay, marka C1 cashirka qeybtan wuxuu leeyahay was is was. Waxa muxuu yahay? Waxa muxuu yahay? Afka Soomaaliga waa sidaas. Okay, waxa muxuu yahay? Was is was? Ordnen Sie zu. Isku aadi. Isku toosi. Okay, inta waxaan noo safan qalabyo laga helayo guriga. deeheed waa taqaanaa waa mid cuntada kariso, mashiinka cuntada lagu kariyo, kuuq maa la dhahaa ilino af Soomaaliga. dee schrank waa armaajada, dee koolschrank waa talaajada ama fariijka saa adig u taqaanid. das sofa waa kursiga ama coachka lagu fariisto. dee tiish waa miis. dee stool waa kursiga caadiga oo cuntada marka la cunayo oo kale lagu fariisto. labadan waa iswataan badanaa dee tiish und dee stool. Okay, das bed waa sariirtii. dee fensia telefishinka. guten Abend. Ja, marka die Waschmaschine, die Dusche und die Lampe, die Badewanne und das Waschbecken. Okay, waa arkaysaa sawirada meeshay ku qoran yihiin. mid walbo had mathalan haddaan kan soo qaado muxuu yahay? waa dee stool. marka dee stool intuu galaa marka because waxaa noo samaysan qaanado ayaa noo samaysan. ya qaanada meeshan waxaa ku qoran mobil. Okay, hadda meeshaan waxaa ku qoran mobil. maxaa mobil ah marka? wax meesha ku qoran maxaa wax mobil ah? kuwa waxay soo qaateen dee schrank. Okay, kuwa waxaa la soo qaatay dee schrank. Number 1 oder Number 1 ist das. Welche ist weiter? Welche ist das weiter? Midka labaad waa kee? Okay, der schrank armaajo. aaway dadkii fiicnay asxaabta aaway maqal ma jiraa? leema maqlo waxaan sheegayo ama leelama socdo.
maqal ma jiraa ma ismalquu hayaa hadda in lasoo qora umaleynaa ilaa haddana wax ma arko because qalabka meeshan ku qoran aa la rabaa in la kala saaro yaa wax isku hayo okay yaa isku hayo mobiil waa qalab jiif calashaan afkeena soomaaliga waxaa la qalab calashaan qalabka guryaha oo jiifka okay qaybtan kale hada qaybta kor had marka wuxuu soo qaatay der Schrank waa number 1 okay maxaa kale meeshan ku jiro oo ah mobiil okay der Kühlschrank maxay tahay der Kühlschrank talaajo waa qalab electroniga talaajo waa qalab electroniga marka meeshan ma lahan okay maanta qof wax ka jawaabay ma lahan dadka ma hurdaan commentiga kusoo qor qalabka mobiila mobiil okay mobiil waxa ah commentiga kusoo qor wax ma arko das sofa richtig maanta cashirka wuu adag yahay now ma adka walaalkii meeshay ku qoran tahay fiiri okay wax wal meeshuu ku qoran yahay wax adag ma jiro muhiimad waxay tahay inaa fahanto aan kusoo celiyo af Soomaaliga der het waa mashiinka cuntada lagu kariyo der Schrank waa armaajo der Kühlschrank waa talaajo das sofa waa kursiga caadiga lagu fadhiisto oo fadhiga noo yaalo der Tisch miiska der Stuhl kursiga das Bett sariirta der Fernseher telefishinka die Waschmaschine mashiinka dharka lagu dhaqo ama qasaalad okay die Dusche qaybta lagu qabaysto calashaan qaybta lagu qabaysto die Lampe nal okay die Badewanne barkada lagu qabaysto iyadana das Waschbecken waji dhaq af Soomaaliga waji dhaq okay der Sessel mashallah Sabrina okay das Bett ist richtig das Bett ist richtig auch okay das Bett ist richtig auch because xitaa waxaa fiirin kartaa wax meeshan ku qoran sawirka xitaa meesha uu ku muuqda hadda kan waa kursi kan wuxuu yahay tiish okay kan wuxuu yahay bed sistu sofa Schrank Waschmaschine okay kan wuxuu noqon karaa Kühlschrank le umaleyna asigan oo yar okay marka das what sorry und das het okay die Badewanne ist unten auch ja die Lampen Fernseher siehst du einfach schreiben waxaad ii sheegtaa imtixaanka bini anis ma fahmin walaalkii waxaa soo qortay okay hay anaa qoraayo marka idinka waa qor weyseene anaa qoraayo haye der Tisch ist richtig maasha allah okay hadda meeshaan waxaan leenahay der Schrank number 1 der Schrank okay number 2 number 2 muxuu noqon karaa das Sofa okay number 3 2 3 Scheiße beide Nummer 2 habe ich geschrieben Number 3
Nummer 4, 5 und 6. Okay. 3 waxaan leenahay der Tisch. Okay. Number 4 waxaan leenahay der Stuhl. Der Stuhl. Stuhl. daada kadib waxaa imaanaya waxaan dhahnay waa weyn, wax weyn. Okay, der Stuhl habe ich, das Bett auch. Siehst du, das Bett auch. Okay, das Bett auch, siehst du. Und was noch? Was kommt noch? Ja, das war's. Die andere ist nicht. Okay, was kommt jetzt diese Elektrogerät? Elektrogerät. Maxaa Elektrogerät aan meeshaan? Okay, marka ugu horeysa soo qaada number 2 waxaan leenahay der head. Soomaali qof caawinaya tahay. Waa ogaa walaalkii anaab Soomaaliya maahano. Anaab Soomaaliya maahano. Okay, qaybta aan tagno Elektrogerät. Number 1, number 2, number 3, number 4, nummer 5 und nummer 6. Okay, waxaan leeyahay der head. Und noch, was haben wir noch? Der Kühlschrank. Die Lampe ist richtig. Siehst du? Kühlschrank. Scheiße, habe ich groß gemacht alles. Warum? Der Kühlschrank. Kühlschrank. Okay. Die Lampe. Die Lampe. Was noch? Was noch? Die Waschmaschine ist richtig. Die Waschmaschine. Waschen. Die Waschmaschine. Waschmaschine. Okay, was noch? Ich sehe nichts. Sabrina Ayuni. ayada la socota maxaa dhacay dadka kala aaway fanaan maasha allah. Okay, ma intaasaa der Fernseher, der Fernseher, Fernseher, der Fernseher und der Fernseher haben wir schon. Okay, qaybta kale aan taga haddana das Bett, das Bad, number 6. Okay, qaybta suuliga in macnihiisa raaci marka qorto. Okay, laakiin macnihiisa af Soomaaliga aan ku sheegayo maano. Der Schrank waa armaajo dhar. Kleiderschrank ayuu noqon karaa, waa dharka armaajada la gashto. Okay, das Sofa waa kursiga qolka fadhiga ku yaalo. Okay, waa dad kursiga markuu yahay labo wixii ka badan, laakiin hadduu hal xaba yahayna waxay dhahaan der Sessel. Okay, der Stuhl waa kursiga caadiga. Der Tisch waa miis.
das Bett waxaa la lahaa sariir. Der Herd waxaa la lahaa mashiinka cuntada kariyo, kuuqa mashiinka. Thanks macalin, adaa mudo walaashay. Okay. Der Kühlschrank waxaa la lahaa talaajo ama fridge saa u taqaanid. Okay, die Lampe nal. Okay, die Waschmaschine mashiinka ghasaalada dharka dhaqo ama dhar dhaqida mashiinka loo isticmaalo. Der Fernseher talaajad. Der Fernseher Television. Okay, was finden wir im Bad? Dies ist der Kühlschrank und die Waschmaschine. Ist richtig. Okay, das Bad meine ich. Das Bad. Okay, sawirada aan soo aragnay maxaa ku jiro oo loo isticmaalaa suuliga. Ko waxaan leeyahay die Badewanne. Die Badewanne. Die Badewanne. Badewanne waa qeyb barkada qaweyska. Okay, barkada qaweyska waxaa la lahaa Badewanne. Okay, next waxaan leenahay die Dusche. Die Dusche. Habe ich es vergessen hier. Die Dusche. Was noch? qaybta suuliga qof wax soo qor malana xaa dhacay. Okay, waxaan leenahay das Waschbecken. Essa meesha isku jirto. Yes, waadani waa weyntu. Okay, halaas ma leelahaya yaa Soomaali Maxamed, halaas ma haysiin. Der Herd waa mashiinka cuntada lagu kariyo. Der Schrank waa armaajo. Der Kühlschrank waa talaajo. Das Sofa kursiga fadhiga. Der Tisch miis. Der Stuhl kursiga caadiga ah oo shakhsiga ama nafarka ah. Okay, der Fernseher Television. Die Waschmaschine ghasaalad. Die Dusche qaybta qaweyska. Die Lampe nal. Die Badewanne barkada lagu qaweysto. Das Waschbecken weji dhaq. Okay, los geht. Okay, sehen Sie das Bild oben und sprechen Sie. Sehen Sie das Bild und sprechen Sie. Okay, sehen Sie das Bild oben und sprechen Sie. Wie gefällt Ihnen die Stühle? Wie gefällt Ihnen
oder wie gefallen Ihnen die Stühle? Gut, sie sind sehr schön. Gut, sie sind sehr schön. sawirka kore fiiri okay kadibna hadal علشان كهذا sawirka wie gefallen Ihnen die Stühle? Okay, sidee ku qanciyeen am sidee ugu heshay kuraasta? Stühle kuraas hadduu hal yahay Stuhl. Okay, qaybta markaa imaatid arkaysaa hadda singular und plural. Singular waa fardi waa hal, pluralne waa viele. Okay, viele Sachen oder viele Ding wax badan am shey badan markay yihiin. Okay, der Stuhl kursiga. Der hadday imaata meesha horan u sheegay waa articleka bestimmt article la hubo waaye. Okay, magac la yaqaano waaye. carabiga wuxuu dhahaa macrifa. der adaad macrifa waaye. Okay, lagadaan dho ein Stuhl wuxuu noqonayaa adaad ama walax ama magac aan la ka siinin. Okay, af Soomaali ahaan markaan dhaho der Stuhl waa kursiga ga. Okay, der Mann ninka. Die Frau nackta ama ja nak. Okay, laakiin haddaan dhaho ein Mann waa nin wuxuu noqon karaa Xuseen uu noqon karaa, Faarax uu noqon karaa, Maxamed uu noqon karaa, Cilmi uu noqon karaa, egal. Laakiin haddii aa isticmaashid der, das heißt du redet mit bestimmten Mann. Okay, bestimmten Mann waay waa qof aa taqaanid. Beispiel ana waa isla soconay banaanka waxaan kusoo aragnay tusaale waaya Farxiyo oo banaanka joogtaan kasoo aragnay. Okay, Farxiyo waa taqaanaa, waa saaxiibadaada, guriga imaanay. Xaliimo guriga joogta waxaa rabtaa inaad dhahdid Farxiyaan soo arkay oo ayada kula taqaano. marka marwal Farxiyo kuma soo naqaysid marka ka sheekeynaysid die Frau Allah marka naagta marka waa Farxiyo. Okay, waa qofta adiga aad taqaanay. marka waa magac cayiman af Soomaaliga magac cayiman shakhsi la hubo. Okay, haddaan dhaho laakiin bestimmte article idane nina arkay مثلا daaqadan oo istaagan nina arkay. marka haddaan dhaho nina arkay ninkii noqon karaa qof walbuu noqon karaa. marka qofkii inuu imaado ninkii uu fiiriyo hadduu ninkii yaqaano uu dhaho nin hiblo waaye. Okay, waqti badan ay qaadanaysaa. Okay, singular und plural male maqlaa. Okay, singular und plural. Singular waxaa la dhahaa fardi ama shakhsi ama wax hal xaba ah, ama plural waxaa la dhahaa wax badan. Der Stuhl hal kursi. Die Stühle kuraas. Okay, kuraas jarmalka magacyada badanaa waxay wataan article. had sida meesha ku aragtid der Stuhl, der Schrank, der Tisch, die Lampe, das Bett, das Sofa. Okay, waxay wataan adaad ama horgale oo article kaasi haddii مثلا uu noqdo plural, inta hadduu ku noqdo plural. Okay, mar walba wuxuu qaadanayaa die haddii bestimmte article uu yahay waayo magac cayiman hadduu yahay.
laakiin hadduu yahay magacan cayimneen wax article ma qaato. Okay, ila soco. Der Stuhl, die Stühle. Der Schrank, zwei Schränke. Der Tisch, die Tische. Die Lampe, die Lampen. Das Bett, die Betten. Das Sofa, die Sofas. Okay. mal fahmay. Kursi, kuraas. Armaajo, armaajiyaal ama laba armaajo. Miis, miisas. Nal, nalal. Sariir, sariiro. Kursi, kuraas. Okay. meeshana aan imaano marka. meeshana aan u imaano. su-aal waxaa taale meesha marka waxaa lagu yidhi zihan si das bill sawirka soo fiiri oo kor saaran ku noqo kadibna sprechen Sie waa inaa hadashaa marka commentiga waa inaan arkaa. Ko wie gefallen Ihnen die Stühle? wuxuu yidhi waa Beispiel adiga waa inaa badashaa. Gut, Sie sind sehr schön. Ziidan maxay tahay marka? ziidan aniga aan ku hayo arowga muxuu yahay? ziidan hadda personal pronomen waaye, magac u yeel waaye, laakiin yay magac u yeel u tahay meeshan u taalaa. hala soo hadlo commentiga faraha laga shaqeeyo. Okay, commentiga because aniga inaan iska socdo ma rabo. waxaan rabaa in la fahmooyo iyo in kale inaan ogaado. su-aasha haddaan soo dhigo waa in laga soo jawaaba. haddaan laga jawaabaynin micneheedu waxay tahay lama fahmin. si aan u ogaado inaan la fahminne waa in leedhaha ma fahmin. Okay, los. Ich habe 4 Tische. Ist richtig? Okay, laakiin su-aasha aan weydiiyo waxay tahay ziidan maxay tahay? ziidan meeshan ku qoran gut, sie sind. ziidan maxay tahay? waa personal pronomen laakiin meeshiyay u taalaa wir 9. Okay, yay meeshan u taalaa ziidan. inta qaybtan soo akhri. Wie gefallen Ihnen die Stühle? Die Stühle. Gut, die Stühle sind sehr schön. Oder? Kann man eine personal pronomen benutzen, sagt einfach sie sind sehr schön. Sie sind sehr schön. Sie ayaga die Stühle heißt das. Okay, ayaga waa die Stühle. kuraasta laga hadlooya. ziidan hadda waxay meeshan magac u yeel ugu tahay kuraasta. too kala imaan doonta hadda sheegaysa dagaal fiidnaaman ku guruga. Okay, wie gefallen Ihnen die Stühle? Gut, sie sind sehr schön. ziidan waxay u taagan tahay meesha die Stühle. Okay, sind waa ahaansho. Die Schranke sind sehr schön. Ja, ist richtig. Okay, aber wenn haddaan dhaho tusaale hat die Schranken sehr schön hat geschrieben hoodo qani. Okay, hoodo waxay soo qortay die Schranke sind sehr schön. haddaan dhaho sie sind sehr schön. sie sind sehr schön. maxaan ka wadaa marka? waa die Schranke. ziidaas waxay u taagan tahay die Schranke. kuraasta armaajooyinka ayay u taagan tahay meesha. Verstanden? Okay, personal pronomenka waa in si fiican loogu soo celiyo. maalin walba ku celiyaa laakiin ilaa yawmina hada lama fahmooyo. Okay, personal pronomenka waa xoog in la saaraa. personal pronomenka waa in xooga la saaraa. Okay, guck mal hier. Ich, du, er, er, sie,
S. Nein. Die muss runtergehen. Okay, wir und noch ihr, sie und nochmal sie. Ciidan waa la arkaa maahno. Okay, ciidan waa la arkaa maahno. Okay, ich waa personal pronomen. waxaa la dhahay waxay tahay waa personal pronomen. Okay, die heißt personal pronomen. Okay, haddaan dhaho ich, it means waa aniga. afka Soomaaliga aniga. Okay, aniga hadda tusaale my Name ist Hussein. Okay? Mein Name ist Hussein. Okay? Das ist meine, nicht deine. Du musst schreiben, du heißt Hebel. Okay? Marka tusaale raba inaan ku siiyo. Tusaale marka. Okay. Ich عشان yaan ka hadlooyaa marka aniga iska hadlooya my name ma soo celin kari maahano. Baate iidan qalad waay. Okay. my name ma soo celin kari oo maanta dhan Hussein ma qori kari maahano. waxaan leeyahay marka ich komme aus Somalia. Okay, yaan ka hadlooyaa marka hadda waa aniga oo Hussein ah. aniga oo Hussein ka hadlooyaa marka ishtan waxay personal pronomen u tahay aniga. Okay, aniga ayay personal pronomen ii tahay. Okay, marka adigaad matalan waxaa lagu dhahaa tusaale waaya adiga. Du af Soomaaligan wuxuu yahay adiga. Ich waxaan dhahnay aniga because way soo noqotay personal pronomen kan. waxaan rabaa si fiican in loo fahmo. Okay, adiga tusaalead waxaa lagu dhahaa okay Beispiel hoodo. Okay, hoodo marka aan maanta dhan hoodo ma dhihi kariye. hoodo waxay ka imaatay Soomaaliya. hoodo adiga ma ku celin kari. laakiin aniga waxaan isticmaalaa markaan hoodo la hadlaayo waxaan isticmaalaa du. Okay, du kommst aus Somalia. Okay, marka hoodo booskeeda waxaa soo gashay marka qofkaasaa soo galay. Okay, hadda duudan meesha taalo waxay meesha u tahay calaashaan hooday u taalaa. ishtan waxay meesha u taalaa aniga oo Hussein meesha ii taalaa aniga. Okay, hibil calaashaan ciidan aan kala qaadno waxaan leenahay
وأسيجا أفك الصومالية أسيجا زي أيضا أوكي اسنه وشيء أو أسيجا مع أيضا نقول كرتو أوكي هذا مركان كهذا مركا أسيجا مثلا قفان كاغ شيكينويا وحان كاغ شيكينويا تصالح رسلوس اوكي تصالح وحان كاغ شيكينويا محمد ما انت ان محمد كوغسو العلي هذيك معنا كوما بخينيس لكن waxaa isticmaala ايه اوكي هتصالح waxaan ku leeyahay ايه يا وايكاس محمد واكو شيغ ما هنو ايه هايست محمد marka محمد ما انت دن كوما soo celcelinay marka ايه kommt aus Somalia is richtig okay mar walba marka magac ciyaalka waa inaa isticmaashaa ايه waa asiga zi ayada es shay oo shakhsi amaashan bini aadan ama magac ayada ama aniga uu noqon karo okay via anaga okay anaga markaan iska hadlayna had مثلا aniga iyo waxa iska hadli rabno oo kale hibil kale meeshan fadhiyo okay maanta dhan magaceena ku soo celceliyo micna ma bixinayso waa inaan isticmaalaa magaceena boss geli wax geli karo waxay noqonaysaa via anaga okay hada tusaale idinka idan la hadlooya okay iyo waa idinka afka Soomaaliga idinka okay idinka مثلا ana hada maanta dhan hibil muqal celin kari لكن waxaan dhihi karaa iya idinka seit meine Schule iya seit mein Schule idinka ardaydeeda tihiin okay iya seit meine Geschwister walaalahayga tihiin okay marka waxaan isticmaalaa iya idinka maanta dhan hibil iyo faarax farxiyo faadumo hibil geedi muumin walaalahayga maanta dhan ma titrin kari waa inaan isticmaalaa wax ayaga u dhigmaayo waa iya personal pronoun hal mara ayaga sheega kadibna waxaan isticmaalaa personal pronoun saasan sheekada ku sheega marka okay ziya ku soo hartay ziidan hore waxaan dhaheynaa okay ziidan oo weyn esteeda ay weyn tahay waxaan leenahay waa ziida loo isticmaalo sida waasisloos waa ziida loo isticmaalo mudanaha علشان markii qof mudane ala hadlaysid mudane amal oo qof xafiis joogo ama dukaanka ama qof weyn marka ala hadlaysid waxaa isticmaalaa علشان xushmad isqishtay okay xushmad ahaan marka qofka ula hadlaysid mudane ana waxaan u bixiyo mudane okay hadaan dumar hadlaan marwo okay ha isku reerin marka okay taas waxaan dhaanay waa qofka xushmad marka ula hadlaysid ama xushmad ya afkeena Soomaaliga waxa yaa okay xushmad marka ula hadlaysid waxaan leenahay marka zi adiga oo macna duudi oo xushmad la siiyo waa loos okay teeda kale zi kala jirto maalin dhawadna waa sharaxay ziyaasha jarmalka tirada ka bateen tanna waxaa la dhahaa ayaga okay ayaga kubi aan soo arkeyna aan kaaga sheekeynay ayaga no kubi macnaha soo istaas beso marka maalin kale yeeso soo noqonin qofka hadii magac uu ku sheegay hadaan ku noqdo sawirka fiiri wie gefallen ihnen die Stühle had maxay noqonayaan af Soomaaliya bal iyaga way fiican yihiin iyaga علشان Stühle ka bada iyaga markaan dhahayo oo ziidana isticmaalo waa iyaga way fiican yihiin die Stühle okay noch hier siehst du wie gefällt ihnen der Herd hier mashiinka inta yaala oo cuntada lagu kariyo adiga sidoo kula yahay okay muxuu yiri nicht so gut ma fiicna iya asiga talaaya waxa laga hadlaa mashiinka de asiga okay ist hässlich علشان wax fiican ma aan oo ma qurux badna
Verstanden? Verstanden? Waa kuu sheegay meeshaan haddii la soo celiyo maanta dhan wie gefällt Ihnen der Herd hier nicht so gut, der Herd ist hässlich. Inaan soo celceliyo maanta dhan der Herd der because micna ma bixinayso. waa inaan isticmaalaa wax ayada tusi karo. waa der aan dhaho boosku wuxuu u taagan yahay waa männlichki laakiin der Herdna waa männlich. waa isshabahaya dhab isku dheji hor u qaado asaga. okay marka hadda hala bedelo meeshaan wie gefallen Ihnen meeshaan hadda dii shuula ah waxaa ka dhigtaa mid meeshan kala soo bax kadibna ka dhig. okay mid meeshan kala soo bax ka dhig. meeshaanne waa inaan helaa personal pronomen u dhigma. okay personal pronomen u dhigma waa inaan helaa. matalan tusaale wie gefallen Ihnen die T-Shirt? Die T-Shirt. Was benutze ich hier? T-Shirt. Sie. okay haddaan dho meeshaan wie gefällt Ihnen das Sofa? Wie gefällt Ihnen das Sofa? هذا الصوفة personal pronomen كده محو نقونا صوفة personal pronomen كده محو نقونا. nein nicht plural personal pronomen مقع ويال كده محو نقونا إيا ما شاء الله هني حبيبي. okay ist richtig. Nein, Hani ist nicht er. Das ist es. Entschuldigung. Das ist sachlich. Neutral. Sorry. Das ist neutral. Okay? Es. Okay? Es heißt es. Okay. Hadan doho. Tosal. Wie gefällt Ihnen die Lampe? Die Lampe. Wie gefällt Ihnen die Lampe? Sie ist richtig. Sie. Warum? Warum sagst du diese sie? Tosale Antag mich an Kugura aus. Okay. مثلا okay meeshaan waxaan rabaa dii maxay tahay labo der maxay tahay das muxuu yahay هذا دي maxay tilmaantaa bas machen Sachen schlafen. Die waa feminin. Die ist feminin jetzt. لأن أما af Soomaali haddaan ku sheego waxay tilmaamaysaa dumarnimo. okay wax dumar ah ayay tilmaamaysaa. af Soomaaliga maxaa la dhahaa dhidig. okay af Soomaali fiican aan qabnaa dhidig. okay feminine diida waxay tilmaantaan dhaanay dhidig. Wo ist das? Komm her. okay der wuxuu tilmaamaa männlich. okay af Soomaaligan qabnaa asigan waxaa la dhahaa lab. wuxuu tilmaamaa lab. wo ist die Farbe? komm her. okay das waxaa la dhahaa neutral.
إذا waxaan leenahay shay inkastoo bini aadan uu ku jiro laakiin waa shay zaqlish ay dhaan kuwa qaar okay had ma leela fahmaa lahaas haddaan dii isticmaalo waa feminine magacyaalkeeda meeshan ku sii qoro saana dhow isku qaldin Soomaaliya tiin isku qaldisin oo ogeey okay feminine wixii ah zi waa ayada af Soomaaliga maxaan dhahnay ayada af Soomaaliga waxaan dhahnay ayada voice default come here gaduudka da aragtid ama casaanka sa u taqaanid wuxuu tilmaamayaa bas af Soomaali okay daya waxaan leenahay magacyaalkiisa waxa waay iya iya af Soomaaliga waxaa la dhahaa asaga ninkii ahay asaga okay au gaduudkiisa okay esna waxaan leenahay waa asaga ama ayada oo shay ah inkastoo jarmalku uusan shay qabin iska ilaaliya because markaan ku dhahay shay ma qabo micnaheedu waxay tahay calaashaan hadda qaybtan zaqlishka waxaa soo gelaya hadda gabadha oo kale gabadha Mädchen okay ilmaha oo kale richtig ilmaha u tagan tahay ja richtig marka afka jarmalka waalidaas uu qabaa had das Mädchen waa gabadha okay das Kind cunuga marka had das Brot hadda qaybtan hadda lagu dhahayo labka ah eeyga intuu soo galaa okay der Hundalla okay qaybtan hadda dhidiga ah because die Katze mugulaashi meesay soo gashaa marka jarmalka xoogaa mental ahaan luqadiisa waxaa waay daawad u baahan tahay khibrada luqadaha ka shaqeeya inay u fariistaan waay luqadooda wax badan ka bedelaa waay marka halahaas amaanta waday I hope in laga faa'iiday marka magacyaalada bit yeysan soo noqonin magacyaalu markale hay ugu soo noqonin intaanan bixin ka hor okay hadda meeshaan waxaa ku qoran sehr gut halqaanada iskugu jiraan ganz gut es geht nicht so gut علشان qaybtan kore aad u fiican yahay waa inta because fiicnaan way jirtaa laakiin 100% ma ahan bas is unsore taasi way imaan doontaa okay hani habib maala okay way imaan doontaa okay cashiradaas grammatiga ah waa qaadan doonaa I hope waxaan rajeynayaa sida ugu dhow dad badan inay luqadda fahmaan ay ku hadlaan okay aan mar walba waxaan targetka saaraa grammatiga marka iidane waa bilaawi doonaa okay unsaqe because ayada waxay tahay wixiga marka adiga wax adiga aad leedahay ka hadlaysid ama wax ayada ay leedahay wax asiga uu leeyahay iidana way imaanaysaa
laakiin muhiimadda ku waxay tahay qofku waa inuu fahmaa personal pronomenka asalka magacyaalka koowaad adoona fahmin lahaansha ma fahmi kartid wixii way isku xiran yihiin okay qofka markuu magacyaalka fahmo wixii u dhigmaa hadaa fahantid okay do wixii u dhigmaa hadaa fahantid as wixii u dhigmaa hadaa fahantid okay via iya z markaa fahantid kuwa kale waa la qabsan doontaa insha Allah. insha Allah marka علشان qof walba marka I hope waxaan rajeynaa inay wax walba okay u yihiin inaa fahantay waxaan soo sharxay iyaysan nagu soo noqon haddaan isniinta markaan soo galo haddaan wax ku weydiiyo I hope qof kugu horay inaa noqoto inaa ka jawaabtid qof walbaan la hadla okay adiga inaa ugu horeysid ayaa fiican. okay hadda qaybtan waxaan rabaa midibada waa qaybtan noogu dambeysay farben die farben midibo sanadan uma baahnid walaashi 6 bilood hadaa xooga saartid jarmalka waa baran kartaa 6 bilood. youtube-ka waa ku soo celinaa asoo ku celis ahaa youtube-ka waa soo gelinaa live-ka markuu dhamaado marka kadib youtube-kan soo geliyaa youtube-ka waa asoo waxaa ku playback ahaan waa calaashaan ku celis aa u dhegeysanaysa u fiirsan kartaa qofka rabo. okay die farben calaashaan jam single iyo pluralkiisa waa okay schwarz madow weiß عدان okay 9 ich mache nur 3 Tage pro Woche 3 Tage Montag Mittwoch und Freitag okay von 18 Uhr bis 19 Uhr aber heute war ich spät. okay schwarz madow weiß عدان grau kalarka greenka grau kalarkan cagaarna ma ahan grau af Soomaali maxaa lagu dhahaa halagu caabiyo okay kalarka grau af Soomaali maxaa lagu dhahaa haddaa grau fahmoon kalarkan afka Soomaaliga maxaa lagu dhahaa ani green la waqaana grey okay grey okay ana kalarada badan ma aqaano waa liga dhoon yahay blau blue groen cagaar rot gaduud ama casaan gelb jaale ama hurud dadka qaar hurud dhahaan dadka qaarna asfar ay dhahaan oo kelimada carabiga isticmaalaan gelb calaashaan waa jaalo sida koonfurta waqooyiga waxaa lagu dhahaa malina hurud ama asfar brown ya cafe anmugu intaas saasan u aqaana dameere miya maxaa dameere miya laadan youtube-kayga afgooyaani janaala ku qoran afgooyaaniga meesha tiktok hadda uu ku qoran yahay camal ayuu ku qoran yahay youtube-ka okay mada afgooyaan ku qortid wuu kusoo baxa okay schwarz grau blau grün weiß rot gelb brown midibada lila way because had information ku qoran ayaan sheegaya lila wuu jiraa rosa jiro okay midabadu way fira badan yihiin marka insha Allah khayr iyo caafimaad idin rajeynaa shunas boqina enda qof walba waxaan rajeynaa weekendigiisa inuu si fiican u qaato maadaama maalmaan samar fiican lagu jiro qoraxda ay zaid tahay like wie man lebt in Africa okay
هذا ما أنت مرة ده فيريه صدق إيشان يبيع شان يمريسي سومالي محي مريسي لو عتني تضو مركا أنا جاب كقول البهانو أنا جي أجوجن مركا أفريقيا مركا أنيجا وحن صوت جلا سديت إيطبانكا لحظة قلب نمو أف سومالي كان لحظة قلب نمو أف سومالي كان ساعة وكل دوّناي أذكر النقطة أوكي هذا أنيجا أسيوه عند ده أسيوه أوكي one begin the next life ich meine die Uhr ja 18 Uhr 18 Uhr 3 Tage pro Woche 3 Tage Montag Mittwoch Freitag 3 Tage okay marka I hope qof walbo shunis Wochenende inuu helo habeenkii inuu idin wacnaado marka khayr badan in rajina TikTok-gaane idinkoo mahadsan waxa lagu share gareeyo dadka qaar alashan si falowgeena kor u kaco falowgeena hoos u jira marka falowgeena suu kor ugu kaco bita hala share gareeyo okay oo kuma santihiin aadaan ku madcelina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته